كمو أها دكتور محمود عبد الله جامع سفر وحي بوص لها سوي بس كل قاري بعد وحي كل لها صور بس بوص قاري بعد لما كان وحوي ولا بتجربة دول ما كان قياسي كما كان إن ندول ما حب كل قاري ما كان سوت كل قاري وهي سمعنا جدد ما هي هنا كل قاري ما سمعنا كلام بس وحي ما كان صدق ماذا بنا هذا محاد كتقانا تاريخ نولدكي دكتور سفير أنت تك حمل أن تشوفني معلوم والبشرين معلوم ميديا هنقول لها بليني وح معلوم والبشرين ما كان ملا دنا إذا كذا عرفت واحد دنيا إن دور قلبه أهله مال سوق عادي إن النوح ستة تعبتون لبا قارهان لبا مد وحوي دستور كان قبيل قرآن سووا أركايو إن هي مد بنباسا بري الشركة تقريبا شوارع كدستور كعنت كهي ملك نوش غيبا يان لا ياب محسو بحي مقع سفر وأنا صدق سفر سيدي لبض سفر سيدي سفر كيدي خاندان سكوة باق واجبعية صح وكذا سفر شو كان هو سفر دكتور محمود عبد الله جامع سفر وحاو باديها مقالة برعو كل شيء سنة كيكون سقال بقل قوبيا فرطنكي وحانا إساقو تدوما سنة جرا وهيركو دكا قيمي دولاد كديغان كبوطة ديري حدك دولة ديغان كسوماليدا إيتوبيا وحانو كبرباري مقالة برعو حارون تقبل كتوغدير إساقو وحبراشرا قرآن كبلا بيدوكسيغا شيخ إبراهيم وحليغا سياها من عام القرآن intaasi kadib dr sifir waxa uu u wareegay dugsiga caanka ee soos ee magaalada sheekh isagoo bartaasi ku qaatay waxbarashada dugsiga hoose iyo dhexe waxaanu ahaa arday da'diisa kaga tegay dadaal iyo firfircooni kaasi oo xariif ku ahaa maadada xisaabta waana halka uu ugu baxay magaca sifir isla markaasina waxa uu caan ku ahaa inuu 3 siro sii dhigto meelaha bannaan kadib marka uu isku dhufanayo 3 tiro markii uu dhamaystay waxbarashada heerka dugsiga hoose iyo dhexe waxa uu markiiba noqday macallin isagoo isla markaasina ka bilaabay dugsigaasi sheekh dr maxamuud cabdilaahi jaamac sifir waxa uu macallin ka soo noqday magaalooyinka caynaba burco sheekh iyo hargeysa waxaanu macallin u soo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay somalilan cabdiraxmaan tuur bishii diseembar sanadkii 1956 waxa uu noqday macallinkii lagu aasaasay dugsiga biyo dhacay ee magaalada hargeysa isagoo halkaasi macallin ka ahaa muddo 2 sano intaasi kadib dr sifir waxa uu ku laabtay magaalada sheekh isagoo macallin ka noqday dhinaca kalena ka sii wata waxbarashadiisa sidoo kalena waxa uu tababar kooban ku soo qaatay jaamacadda Maxamuud oo xilligaasi boodhin ahayd waxaanu mar kale ku soo laabtay magaalada sheekh halkaasi oo uu ka sii watay waxbarashadiisa dugsiga sare لحية لباتنكي بيشي جون sanadkii 1960 markii laga xoroobay kumaysihii Ingiriiska dr sifir waxa uu u fadhiyay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga sare waxaanu ka mid noqday ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaankaasi kadib markii ay soo baxday natiijada imtixaanku oo lagu soo saxay dalka Ingiriiska dr sifir waxa uu liiska xagga hore ka galay imtixaankaasi waxaanu ka mid ahaa arday tiraya oo nasiibo helay scholarship ay ka heleen kulliyadii la foole oo xilligaasi la oran jiray National Tuition Education Center taasi oo marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaanay NTEC isagoo ugu dambeyntiina macallin ka noqday kulliyadaasi دكتور محمود عبد الله جامع سفر sanadkii 1963 waxa loo diray dalka Mareykanka isagoo ka mid ahaa ardaydii ugu horeysay ee waxbarasho u tagta dalkaasi Mareykanka dr sifir waxa uu galay jaamacad ku taala magaalada New York ee dalka Mareykanka
isagoo soo bartay cilmiga loo yaqaano social science-ka kana soo qaatay shahaadada heerka koowaad ee digriga. kadibna waxa uu ku soo laabtay dalka Soomaaliya si uu bulshada uga faa'iideeyo cilmigii uu soo bartay. waxaanu mar kale macallin ka noqday kulliyadii la oran jiray Lafoole isagoo bare ka ahaa muddo 2 sano ah. muddo kadib sanadkii 1968 Dr. Maxamuud Cabdilaahi Jaamac Sifir waxa uu mar kale ku laabtay dalka Mareykanka isagoo halkaasi ka soo qaatay shahaadada heerka labaad ee masterka. waxaanu haddana ku soo guriyay noqday dalkiisii hooyo ee Soomaaliya si uu cilmi baadhis ugu sameeyo ugana soo ururiyo macluumaad isla markaasina uu diyaariyo shahaadada loo yaqaano PhD. Dr. Sifir markii uu cagaha soo dhigay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxa loo qaaday dhanka ciidanka isagoo halkaasi ku soo qaatay tababar hoose. taasina waxay caado u ahayd dawladii hanti wadaagga gacaanka Soomaaliyeed ee Jaalle Maxamed Siyaad Barre. intaasi kadib waxa uu agaasimo ka noqday wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliya waxaana wax weyn ka bedelay qaabkii loo qorsheyn jiray waxbarashada dalka iyo tacliinta sare ee Soomaaliya. Dr. Sifir sanadkii 1973 waxa uu ka hayaamay dalkiisii hooyo ee Soomaaliya isagoo si weyn u saluugay habkii uu wax u waday kelitaliskii Jaalle Maxamed Siyaad Barre. geeska kalena waxa uu doonayay inuu sii wato waxbarashadiisii isagoo ugu dambeyntiina jaamacadda East Michigan University oo ku taala dalka Mareykanka ka soo qaatay shahaadada ugu sareysa culumta ee PhD. Dr. Maxamuud Cabdilaahi Jaamac Sifir bishii December sanadkii 1976 waxa uu professor ka noqday jaamacad ku taala dalka Nigeria. waxa kale oo halkaasi ku wehelisay xaaskiisa oo iyana bare ka noqotay dalkaasi Nigeria. Dr. Sifir sanadkii 1977 ilaa 2000 waxa uu la soo shaqeeyay hay'adda qaramada midoobay isagoo u qaabilsanaa xagga xoghaynta isla markaasina ugu dambeyntii howlgab ka noqday. intaasi kadib Dr. Maxamuud Cabdilaahi Jaamac Sifir waxa uu ku soo laabtay dalka Soomaaliya isagoo sanadkii 2004 wasiir iyo ra'iisul wasaare ku xigeenba ka soo noqday dawladii Cabdilaahi Yuusuf Axmed. muddo kadib Dr. Sifir waxa uu iska casilay shaqadaasi isagoo ka qawaday xilkaasi loo igmaday isla markaasina uu ahaa ninankiisa siyaasadeed intaasi ka sareeyay. geeska kale jamhuuriyadda Somaliland oo madax banaanideeda la soo noqotay 18 May sanadkii 1991 ayaa ah mid aan la soo marinin shakhsiyaadka reer Somaliland ee madaxda ka soo noqda dawladda Soomaaliya. balse Dr. Sifir oo ka soo jeeday Somaliland isla markaasina xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii Soomaaliya ayaa waxa cafis u fidiyay madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo isagoo fasax buuxa u siiyay inuu soo geli karo dalka Somaliland. intaasi kadib Dr. Maxamuud Cabdilaahi Jaamac Sifir waxa uu noqday wakiilka Somaliland u fadhiya dalka Kenya waxaana ugu dambeyntii dib ugu laabtay dalka Mareykanka kadib markii ay xaalad caafimaad darro la soo daristay. اللهم نخليسي دكتور سفر وحاو مالين جمعة شنتي بشي ماي لبدا كون يتطبية تبانكو جيريودي مقالة نيويورك دالك مريكانكا وحاني دادي سوهاي تطباطا يتطبا سنو وحانو دكتور سفر إفكا كغتغي حاس كيسا يلبا عذورا يلبا قوووية هاي اللهم نخليسي جيريدا كتب المرحوم محمود عبد الله جامع سفر ayaa waxa si weyn uga tiraanyooday bulshada Soomaaliyeed waxaana geeridaasi ka tacsiyadeeyay dad aad u tiro badan kuwaas oo isugu jiray siyaasiyiin aqoon-yahaneen waxgarad madax dhaqameed culimo awdiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan sidoo kale waxa geerida marxuumkaasi ka tacsiyadeeyay
madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo isagoo shacabkii ehelkii qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxayba ilaahay uga baryay inuu samir iyo iimaan saadiqa ka siiyo Allah u naxariistay Dr. Maxamuud Cabdillaahi Jaamac Sifir waxaa maalin sabti ah lagu aasay magaalada Mount Sinai ee gobolka New York ee dalkaasi Mareykanka ومحمود محمد تاكتير محمود جاستو شبكة عالمية ترى نيوز مقالة برو